annagoo ka soconna hay'adda SOS waxaanu maanta halkan u joognaa inaanu sameeyno xoolo qaybin 160 qoys ah xoolahaasina waxay ka kooban yihiin 1600 oo xoola neef oo riyo iyo u badan marka waxaanu ujeedaduna ay tahay in dadkii 160 ka qoys waxay ka mid yihiin dadkii abaartu saameysay abaartii dhowrkii sano ugu dambeeyay wadanka ka dhacay dadkaas oo xoolihii ay ka baxeen dabadeed waxaanu doonaynay in uga dan leenahay marka in aanu xoolayno maadaama dadku xoolo dhaqato ahaayeen xoolihii ay dhaqdaan dabadeed noloshoodii ay kor u soo kacdo dhowr 4 meelood oo ka qaybinayno waxa ka koowa Daar Salaam waxa kamid ah ilinta bari ilinta dhexe ilinta galbeed 4 deegaan ayaanu ka qaybinaynaa xoolahan qoyskiiba wuxuu u helayaa 10 neef 10 ka neef ayaanu ugu tala galnay 10 ka neef marka 160 qoys ku dhafato waxay noqonayaan 1600 neef waxaan kaloo iyadana u mahadnaqayaa shirkadda qaybinaysa xoolaha Kaahiye oo la yiraahdo Kaahiye oo iyaguna runtii si fiican uga soo shaqeeyay xoolaha keenitaankooda halkan marka deegaankan waxa kaloo u mahadnaqaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo iyaguna sida arkaysaan talaal ka wada 3 talaal oo kala duwan siinaysa xoolihii si caafimaadkooda looga warhayo loogana hortago xanuunada iyo waxyaabaha kale dila xoolaha aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkana waxaan ku boorinayaa inay ka faa'iideystaan xoolaha waxa loogu tala galay in la dhaqdo looguma talagelin in la iibiyo ama in la qasho waa in la dhaqdo oo xoolo badan oo kale ay sii dhalaan mustaqbalka si markaa noloshiinii ay kor u soo qaadanto oo aad ka faa'iidaan idinka iyo ubadkiinuba rabbil caalamiin sida arkaysaan waxaanu joognaa ilintii dhexe oo aanu 35 qoys oo ka kooban ilinta dhexe iyo foodka oo isugu jira aanu siinayno xoolihii waana arkaysaan roob baa noo da'ay roobkii si fiican ayuu dhulkii u maasheeyay roobkii iyo waxa markaa kulmay iyo xoolihii la qaybinayay oo runtii wax Ilaahay isla soo doontay oo aanu aad Ilaahay ugu mahadnaqayno marka waxa kale oo mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo gudida iyo dhammaan intii ka soo shaqeysay ee fududeysay hawshaasi inay sida habsamida leh ay u qabsoonto una dhacday marka alxamdulillah aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anoo ku hadlay afka hirtuliyaasha degmada Daar Salaam dhammaan xoolahan la qaybiyo ilaa 1600 oo neef oo dadka abaaraha ay heleen loo qaybiyay hay'adda SOS oo bixisay hay'adda Kaahiye oo soo iibisay sidaa darteed waxaanu leenahay mahad Ilaahay baa leh marka labaadna hay'adaha ayaanu mahadnaqaynaa hay'adda SOS waxaan ugu mahadnaqaynaa ariga haddaanu foodka iyo ilinta dhaxalnahay ay noogu deeqeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan xilligii loo baahnaa oo xoolihii hore dadka ka dhammaadeen ayuu ku soo beegay roobkii xareedii baa waran waxa weeyaan waa Ilaahay mahadii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaanu joognaa ilintii dhexe waa Ilaahay mahadiya ilintii dhexe tuuladii foodka waan wada taaganahay waxa maanta halkan lagu degmada Daar Salaam ee gobolka Maroodijeex waxa maanta halkan lagu gudoonsiinayaa deeq ariya oo ka kooban 350 neef oo ariya oo loogu tala galay 35 qoys oo ku kala dhaqan labada tuulo ilinta dhexe iyo foodka oo isbarkan waxaan uga mahadnaqaynaa hay'adda SOS iyo shaqaalaheedaba sida habsamida leh ee howlkarnimada leh ay noo soo gaarsiiyeen mucaawinada aadka loogu baahnaa ee ku soo beegantay waqtigii loo baahnaa waqti maxaan ku raadayay dadku xoolihii hore ay ka baxeen haddana raxmaadka ee bay u curteen baynu joognaa marka raxmaadka ee bay xoolaha la isku soo beegay waxaan leenahay waqti loo baahnaa iyo goobtii loo baahnaa ba isku soo beegmay waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka inoogu haydiku daro Ilaahay idinka jazaaysiyo aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa maamulka degmada Daar Salaam oo si howlkarnimo leh intii ay hawshani socotay uga shaqeynayay inuu arigani gaadho dadkii loogu tala galay u baahnaa nagala shaqeynay nagu kormeerayay haddaan weertuulayaashinahay oo nagu daba taagnaa aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa dadweynaha arigan maanta ka faa'iideysanayaa arigaasi waqtigii loo baahnaa iyo goobtii loogu baahnaa buu ku beegmay ariga aynu darayada ka jirno oo waxyaabaha shuruudihiina loo qoray
adhiga ku jira bixintiisa ee ahaa inaanaynu adhiga dib loo iibin inaan maxaan ku dhahdaayey dayac ku iman inaynu adhiga ka ilaalino oo haddii ay baqadaro insha allah kormeerada dambe ay arkaan adhigiiyo sida adhigii horeba dhacday adhigiiyo midhihiisii aynu leenahay waa tafiirtii adhigii soos aynu leenahay hayna laga arkaan hadalka kusoo gabagabeynaya bismillahi raxmaani raxiim waxaan joognaa deegaanka ama tuulada ilinta dhexe oo ka mid ah deegaanadii aynu ku qaybinaynay xoolaha deegaankan ilinta dhexe waxaynu ugu qaybinaynay 35 qoys oo ka kala tirsan labada tuulo ee ilinta dhexe iyo foodka tiro adhi oo dhan 350 neef oo loogu talagalay 35 qoys min 10 neef in la siiyo sidaad arkaysaan waxaan wareejinaynaa hadda oo annagoo kala wareegnay hay'adda soos muxuu ahaa deeqda xoolaha aan ku wareejinaynaa dadkii u baahnaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa deegaankan aynu joogno maanta si fiican uga curtay roobkii guga oo in muddo ah muxuu ahaa aan ka diin deegaanadan ilaahay baynu ugu mahadinaynaa sidoo kale waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa hay'adda soos runtii waa deeqdii ugu ballaadhnayd abid ee xoolaha waxa weeye hay'ad amba waxa weeye cid waxa weeye dee dadka muxsiniinta ah waxa weeye wax dad sadaqadaysta waa hay'adii mashruucii ugu ballaadhnaa ama deeqdii ugu ballaadhnayd ee soo gaarsiisay degmada Dar es Salaam 1600 oo neef runtii aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadnaqaynaa aad baan u salaaminta. Assalaamu calaykum.